28kii bishii December ayay ahayd markii si rasmi ah Soomaaliya hawadeeda ay dib ula soo laabatay isla markaana munaasabad furitaan ah oo kaga qayb galay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo 28 March maantana waa maalintii ugu horeysay ay soo laabtaan tiro dhan 30 kamid ah shaqaalaha saadaasha iyo duulista hawada ee xaruntooda ay ahayd magaalada Nairobi ee dalka Kenya waana tilaabo horumarineed ee dawladda dhexe ee Soomaaliya ay gaartay iyo wasaaradda duulista iyo gaadiidka waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay runtii inaan isugu nimid arrin ay dad badan hore uga hadleen oo soo wareejinta hawada Soomaaliya in laga maamulo wadanka gudihiisa dad badan oo Soomaali ajnabi ah ayaa waxay inoo sheegeen marar badan inaynan suurtagal ahayn in la soo wareejiyo hawada Soomaaliya oo laga maamulo wadanka gudihiisa maanta waxaan marag ka nahay sidii aan ku ballan qaadnay 28kii bishii December 2017 in hawada Soomaaliya laga maamulayo maalinta ka bilaabata laga maamuli karo wadanka gudihiisa inay maanta noo soo guureen shaqaalihii halbowlaha u ahaa maamulka hawada Soomaaliya shaqaalahani oo ka shaqeynayay Nairobi ilaa iyo sanadkii 93 deganaa Nairobi 34 qof oo shaqaalahaas ilaa iyo 34 qof shaqaalahaas kamid ah ayaa maanta waxay u soo guureen wadanka gudihiisa si permanent ah joogto ah ay wadankan ugu soo guureen waxa maanta marqaati laga yahay in soo wareejinta hawada Soomaaliya oo aanan ahayn wax sahlan ay reality noqotay oo maanta ay dhab tahay shaqaalihii khubarada ahaa Soomaali ah oo deganaa wadanka Kenya intaasoo sano inay hadda soo guureen maanta ka bilaabatana wadanka gudihiisa ay degan yihiin lagana maamulayo wadanka hawada Soomaaliya in laga maamulo wadanka gudihiisa maanta inay reality tahay Ibrahim Umar Baafe wararka Universal alboorka aadan cadde magaalada Muqdisho